hamiga iyo hiigsiga meel dheer uu qof kasta ku haminayo waxay u baahan tahay dhabar adayg iyo kalsooni buuxda waxaana ka sokaya yoolkaaga gaaridiisa wadooyin yaryar oo aad u dhib badan kaagana baahan yahay ka gudubkooda wadooyinkaas si aad uga rumayso rajadaada nololeed ee hadafkaaga u gaarsiinaysa muuqaalkan waxaynu kula wadaagayaa 5 sharci oo kuu horseedaya in aad guulaysatid magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaarid inteenan muuqaalkeenina u gelin noo dhaha subscribe iyo like si aan u ogaano inta muuqaalada noocan oo kale ah xiisaynaysa ku soo dhawaada muuqaalka oo faahfaahsan sharcigeena koowaad ismuuji oo noqo qof la arki karo shay kasta waxaa lagu xukumaa muuqaalka laga arkayo balse laguma xukumo waxaan laga aqoon shaygaas barnaamij ha u yeelin naftaada inay cid kale lumiso gadaasheedana ay ku aasto mana jirto cid u dhalatay iftiinka ka soo baxaya dabka holcaya ee kugu hareeraysan dadkuna waxay wax ku xukumaan waxay arkayaan sidaa darteed waxa muhiim ah in aad u muujiso wax ka badan waxa tahay dadka kale sharcigeena labaad ka fogow murugada iyo nasiib xumada murugadu waxaynu ku tilmaami karnaa cudur waana xanuun aad ka dareemayso qalbiga waxaana muhiim ah in uu qofku xanuunka ka ilaasho naftiisa taana waxay u baahan tahay kalsooni dhab ah nasiib xumadu waa xaalad dareen ee hooseysa qofkiina wuxuu u luminayaa difaacii noloshiisa u qalantay marnaba albaabada cabsida ha u furin naftaada waayo mala'awaalka waa kuwa daciifinaya naftaada ka feejignow oo dantaada garo noqo qof daacad ah daacadnimadu waxay mararka qaar dabooshaa fikirka laga qabo daacadnimadaada umar ficilo muuqda daacadnimadaada iyo ujeedooyinkaaga nololeed adigoo u kala hormarinayay say u kala muhiimsan yihiin baro waxbixinta ka hor intaanan adigu aadan qaadan u isticmaal daacadnimadaada gaarka ah qof kasta oo muhiim ku ah ku celceli waxa aad ku fiican tahay oo ku gaar ah waayo waxa aad jeceshahay oo aad ku celceliso maalin ayaad ku faa'iideysaa sharcigeena afraad markasta isdhiirigeli waxaana waajib ah inaad u muuqato qof waxtarkiisa iyo ilbaxnimadiisu lagu tixgeliyo qari qaladaadkaaga waxaadna heli doontaa tixgelin mug leh waxaana waajib ah inaad daahiriso naftaada korna u qaado hab fikirkaaga noqo qof fiiro dheer leh dheeraad badanna ha barbar dhigin naftaada shakhsi kale waayo haddaad barbar dhigto naftaada qof kale waxaad lumisay naftaada xaq ay kugu lahayd sharcigeena shanaad waqtiga iyo maarayntiisa waana qodobka ugu dambeeya oo casharkeenna aynu ku soo afmeerayno saanu ognahay waxa ugu weyn uu Allah ina siiyay waa waqtiga qof kastana waxa uu Allah siiyay 24 saacadood loona baahan yahay inuu ka faa'iideysto waqtigiisa badanaa dadka waxa ka dhaadhacsan inayna waqtigooda maarayn karin taasoo ku sababi karta shakhsiga murugo waxaana muhiim ah inaad si degan u nadaamiso waqtigaaga adoo u kala horumarinaya waqtigaaga sida ugu muhiimsan waxaa jira 3 hab oo aad waqtigaaga ku maarayn karto 1 nadaami waqtigaaga sida ugu habboon uga faa'iideyso 2 u yeel waqtigaaga qorshahaasoo ku salaysan muddo iyo waqti ku jaango'an 3 qorshayso wax kasta oo aad qabanayso adoo u nadaaminaya siday u kala horumarsan yihiin waxaan rajaynayaa inaad wuxuu ka kororsateen sharciyadan aan inuu soo gudbiyay wixii fakara aad ka faa'iideysatay loogu reebo xagga hoose iyo wixii baraarujina waad ku mahadsantiin asxaabta taawashadiina